السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكسلام يا صاحب صاحبك قالئة ونكن ومالي مرنا وعبد الله وقوميهن صوماليات دور جرى هربا وذكرني aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan mar labaad isku soo noqono annagoo nabad qabna saaxib waa dhawahay maanta waxaan joognaa horta aan ku bilaabayaa Somali Associate baa maanta waxay qabatay xalfad halkan baa lagu cunno karsanayaa dadka Soomaaliyeed faamilada la isu keenaya dadka dhamaan way ku mahadsan yihiin taas ka bacdi magaalada Calgary saaxib ayada tan horta waxa ka dhacay population-keedii aad u siyaaday dad aad u badan sida Toronto iyo Edmonton iyo ayada saddex magaalo way dadka immigrant uga imaadeen magaalada way deganeyd shidaalku raqiis buu ahaa cunadu way dadku way life-ku leeb uu saxnaa laakiin bilahan u dambeeyay sanadkii u dambeeyay aad kres xun baa jira shaqadii way xumaatay oo male way adkaatay dadkii shaqada u aatay Canada percentage waxay maraysaa 6 baaliyo ka inta la qaranaya ka badan sidoo kale wadooyinkii traffic badan baa ka dhacaya sababta population-ka aad u batay biyihii restriction baa ku jira waxa dawladdu u artay maayo wuxuu ku saa biyaha hal dhaqaaleeyo dadka biyo wal gaarsiin lahayahay horta hawlaha waa adag yihiin marka inkastoo dawladdu hadday ku dhawaaqday step ah in la joojiyo dadkii oo la yareeyo marka taas intaas horta baan xagga magaalada ka soo gudbinaynaa sidoo kale waxa la sheegay dalkan magaaladan dhamaan Alberta iyo Canada ardada iskoolada waxay ku noqonayaan kowda bishan September telefoonada aan la gali karna waa la sheegay oo waa laga baan baa laga saaray waagoor ardaygu iskoolka markuu dhiganayo telefoonkiisu ka baaran jiray casharada iyo waxa hadda lama ogola dibadda loo saariyo waxay go'aantaa sidoo kale dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya baa imaatay magaalada la sheegaya wali ma la kulantay dhalinyaradaas bal xaaladooda guud iyo maxaa kaaga baxay ama challenges ka haystay ka cabanayaan maxaa kamid ah dadka dalka ku cusub saaxib su'aal aad ugu can weeye saaxib dhalinyarada Soomaalida dhibka haysta waxa weeye annaka ayagoo waxay imaanayaan aan skill ah oo xataa luuqadiina garanay skill aan lahayn caalamka kale dadka shaqaalaha ka imaada ama dadka foreign-ka ama immigrant-ga ah dad dalkooda dawlad leedahay bay ahaayeen wax badan soo qabtay kuwa makaanigi bay ahaayeen kuwa plumberka kuwa engineer kuwa sida cawskan loo dhigay garanayeen laakiin Soomaalideena wuxuu rabaa qofku inuu warehouse ka shaqeeyo oo gacantiisa xoogsado iyo inuu gaari wado labada weeye shaqadiisu meeshii hilibkana si ugu sheegay Soomaalida waa laga eriyay meeshii Brooks nin baa qabsaday hilib kale halkaan oo Calgary ku yaal wiilka Soomaaliga waa laga saaray asna Soomaalida hadda soo u jeedid waxay u muuqataa in laga saarayo meelihii shaqooyinka marka dhamaantood hadda rag iyo dumarba guryaha fadhiyaan oo dadka u badan oo bilaa shaqada rag iyo Soomaalida weeye sababta marka Soomaaligu meel u kaliin gareeyo iyo gaari la rogo markii la waayo iyo wax la wado hatta taraagadii dhalinyarada taraagada wadi jirtay boqolkiiba 90 maanta waa shaqo la'aan waxa keenaya hindidu marka u shaqaysay lacagta waa ku diidaya hindigiina wuxuu qaadi waayay marka aad iyo aad baan wallahi uga xumahay dhibaatada dadkeena haysata dhalinyarada dhamaantood bilaa shaqo weeye sida marka loo eego dhamaantood iskiibka xataa waa taagan yahay okay marka maxaad kula talinayn dhalinyarada cusub ee wadanka ku cusub maadaama adigu aad waqti badan joogtay wadankan aad wax badan ka fahansan tahay bal sideed dhihi lahayd isu maareeya ama suuqa shaqooyinka xariiftan u gala aad maxaa talooyin siin lahayd saaxib mid kale aan kula talin lahaa dhalinyaradii ka horeysay dhalinyaradan hadda line-ka haysata oo shaqooyinkii haysta oo kambaniyasha ku jira waxaan ka codsanayaa inaan is xastin dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u badan tahay haddii maanta qof kambani ka shaqeeyo oo boos ka banaanaado ma soo sheegayo wuxuu diidayaa qof kale oo Soomaaliya ama aan ku jife ahayn inuu keeno rag iyo dumarba wayna dhacday wayna aragn kuwa badan baa la soo xiriiray dhalinyarada waxaan ka codsanayaa dhalinyarada hadda timid in la soo dhaweeyo oo shaqo loo raadiyo ilaahay baa rasaaqada qoray walaalka way Soomaali ah inaad xastin shaqo markay banaanato qabiil ha u eegi walaalka Soomaaliga rasmiga ku dhiibtay gee meesha saasay maanta ku badbaadi karaa haddii kale waxa 15 sano labada sano soo socota ama sano soo socda rag badan baa istiriyada seexan doona iyo gabdho badan oo Soomaali ah ayaa istiriyada seexan doona haddii saan ku socoto sababta ah ayna looma ogola oo qofka saacada ma haysto ayadana looma ogola oo qofkii waxa leeyahay qaabkiibaad ku nooshahay shaqo raadso adduunku waa adkaada marka dhalinyarada hal caawiyo ilaa masaajidada ka buuxaan hada waa arkay waxay u tukadayaan ninka Soomaaliga markuu shaqo waayo masaajidku ku ordaa marka ma xuma masaajid waa lagu ordi karaa masaajidka waxa meesha u dambeysay la aado weeye laakiin waxa la rabaa masaajidka adoo aadaya inaad shaqo raadsatid
Good job, man. Thank you so much. aad iyo aad baa umahadsantahay saaxiib, waa kaaga mahadcelinaynaa. Marar badan waa isku soo noqon doonaa hadduu alla idmo, barnaamijyo badan aa ka wada qayb qaadan doonaa. aad iyo aad aan kaaga mahadcelinayaa. khayr barwaaqo. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.